موسى عليه السلام نبي موسى أيا أركض دقح رلك الدنيا الله وبينك صوب حيان مركز إلهي نبي موسى وحو مقشيي حين دقح كبحايا حين قوح مركز موسى عليه السلام بعد يا رب إذا بوده الله الله دقحي بالله هلي نبي موسى دقحي الله الله كويري حاد لو يسابلي شيء بيها كاسعود محييين مركز يا موسى وحلو يا وإلهي عبسديس نار بانك بقيا ودقح بنص القرآن إلهي وكو شيء أيضا آخرنا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء دقح دقار بعد دلدلاعيا ومحيل دلدلاعيا إلهي عبسديس دلدلاعيا لأن بيها كصوبوده يبركع ودقح مركز النبي موسى كويري وما هبيان كان صوبحيا مركز وأوهن محلو يسايشك نارت إلهي ما كبق يا ابني وعد أدوك مكلف متي دقح باتهاي جيني يسبا نارت اللي قرا ياي أدوك دقح باتي محلو يسا يا موسى ميانا مغل وقودها الناس والحجارة إن نارت جهنم دقح يدل قهرين دون ميانا مغل مركز ها دي وحا مركا الله هورنا يانا نارتا dhagaxda yar yar baa lagu guraa bal kuwa yar yar baa lagu guri doona sida xaaba marka la doono in la shido kuwa lagu horeysiya awska yar yar marka Abu Allah haduu man anta adu ayata isheeg Musa kalimullah bana Musa kalimullah bana marka suudi xaq ilaaha kalim ka dhigay ilaaha kalim hadalkiisa ku maqashiyan kugu dhaariye ii shafaacad qaado ilaahay iga erga dalab إن إلهي نار تانيكو يقبل بعدي مركز النبي موسى إلهي أبريي إلهي الله سبحانه الله كويري الشهر نار تو يقبل بعدي النساء مركز وش يقول أبشر هذا إلهي نار تو يقبل بعدي مدكدب هذا النبي موسى عليه السلام نجحي وسدي ونقوحايا وبيه نكس عدام وهلك كوسو مري مركز الله وحو كويري وكن نار تلقى بعدي كو شفاعات قال كو ورمه صدق ولي أوهنتي ودما مركز مالك يهري أوهنتان أويي نارت عبسيدان لأويي هذا وحال لأويي يا بولي وشكرا إلهي ما هنقصان لأويي يا بوكي فرحد مرمر قف كل ما أويو يا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكي قارئوا نقول تجيني بعد صلاة المغرب كي لو أنزلنا حلقة القرآن كان أن بشر كسود الجنيبة إلى هاي حتى بورها كسود الجن لها القرآن كا وعلى أرك لها بورها أو دلدلاعيا بورها أو دلالعيا تدوب الجبال بله هذه القرآن كبورها اللي قد جن لها بوره بالي هي سيدا نحاستو أي أدلالي صدق كسود نحاستو أدلاليو أي بوره أدلالي لهايين لكن قلبي قلنا عذك ما أنت إنك قلوبتي بقى أتكاتي قلبي قلني بقى أتكاتي إلهي قلبي هنو جلعي وقلبي محا أتكيي وحنا داونينا قلبي قوة أتكيي ما أنت شيكادنا دويدين كوبادين عرب كينا قلبي قوة أتكيسي dhageysiga aan dhageysanayna ma aragtaanay waxyaabaha hadallada xunxuna sharcigu inkiray waa waxa qalbiga dilay engejiye weeyaan hadalka ma la yaanigu qalbiga u engejiya la tukthiru al-kalama bighayri dhikri Allah fa inna kathrata al-kalami bighayri dhikri Allah qaswatun lil-qalbi wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalbu al-qasi hadith macnihiisu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wakiilaha hadalka ilaahay xuskiisa ka baxsan habadinina buu rasuulku yiri alayhi salatu wassalaam معايا هذا الإله ذكري سكب أحسن قلبك أيو إنجيا وقلبك أيو دلاع ذاتك إله نحارستي سكدرنا وذاتك قلبك يسلم رسول كله هذا الكلمة ما تمحوبته ويتري يؤيلي مقاحيا مع لك شاكيستا دين لك شاكيسان ما يدوي لك شاكيستا سياسات baa lagaga sheekaystaa qabyaalad baa lagaga sheekaystaa
makhluuq baa lagu hadalhayaa. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa qulubtooda uu ilaaliyey. masaajidkuu ku wacdin jiray dhexdiisa, xabaalaha dusheeduu ku wacdin jiray, suuqyada dhexdooduu ku wacdin jiray, fadhiyada ay fadhiyaan buu intuu tugu wacdin jiray. qulubtoodu nebigu ilaalinaya saxaabadiisa, qulubtooda. suuquu ku wacdiyey, suuqa dhexdiisa, xabaasha dusheeduu ku wacdiyey. istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu biاtathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi. reer madiino ansaariya aaskiisii buu ka qayb gelay nebigu calayhi salaatu wasalaam. markuu qabrigii ciiddii la geliyey buu nebigu ku yidhi, walaalkiin dembidhaaf ilaahay u weyddiiya. qowlka haabitka ee xaqana su'aasha qabriga haddaa la weyddiinayaaye jawaabta xaqa ilaahay inuu ku toosiyeyna ilaahay u barya. haddaa su'aasha la weyddiinayay buu rasuulku ku yidhi. qabuura ma dul joogsan nebigu ilaa saxaabadiisa uu wacdin jiray. arkaysaa weeyaan, maqlaysaa. innagana xabaalaha dusheedii baad arkaysaayoo raashin lagu dul cunaayo. ma lihdina miya xaggeenna ma jiraa? xasan albasri baa arkay nin qabuur dusheeda cunto ku cunaaya. kaasi waa munaafiq buu yidhi. almowtu bayna caynayhi wayashtahi aطacaam. war ma ninka qabrigii dul jooga ee qofkii meydkood la duugaya arkaaya ayay cunta u dhadhamaysaa. wallahi ka qalbigiisu u dhintay buu yidhi, ma noola qalbigiisu. marmar qabuuraha intay tagaan bay iska ooyi jireen dadkii wanaagsanaa. lcibra nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira buu nebigu yidhi. qabuuraha inaad ziyaarataan marka hore waa niga reebay ahayde ziyaartoo taga buu nebigu yidhi, waayo aakhiradae qabuurtu inay xasuusinaysaa. qabuuraha ziyaaro, dadka buka dhakhtarrada jiifaana ziyaaro. waxyaabaha qalbiga jilciya waxaa ka mid ah janaasistoo la raaco, qabuuraha loo qasdoo la ziyaarto. innaga maanta maasha allah ciyaalkeenna ubadkeenna intoon qaadno ayaan geynaa meelaha dalxiiska, waa dadka magaalooyinka caasimadaha ku nool. laakiin ninkeebaa intuu ubadkiisa dhar fiican u soo xidho geeyey ee yidhi meel waxaan nigeynaya caalam kala nigeynaya ina mariya, oo halkii aabba nigeyn meel cajiibaan nigeynaya, deedna qabuuraha ninkee geeyo ciyaalkiisa. maxaa la odhan? uu waalan yahay, isagii baa waashay. haye ciyaalkiina uu waalayaa, qabuurihii buu geeyey. muxuu kala doonaa qabuuraha ciyaalka? ciyaalkaaga diintaa lagu tarbiyadeeyaa. marmar ciyaalkaaga intoo la soo qaadaa masjidka la keenaa, markay suuqa kula marayaan lacag intoo loo dhiibo ayaa la yidhahdaa masaakiinta lacagta aabba siiyo sadaqadaysta. marmar ciyaalka intoo la kaxeeyo ayaa qabuuraha inay ku raacaan weeyaan, ay arkaan qof walba halkuu ku dambaynaayo. allah inoo dembi dhaaf. qalbigeennii baa jeestay maanta. adduunye innaku aanan lahayn baan u jeesannay. adduunye aanad ku wariin baad u jeesatay. waan ilownay, allah baan ilownay, daartii aakhiradaan ilownay, jannadii baan ilownay, qur-aankii iyo shareecaddii islaamka ilahay noo soo dejiyey baan ilownay. waxay noqdeen muslimiinta badanaa ilaa man raxima rabbi mooyaane dad adduunye u ka fikiraya maanta. nebi maxamed baa ummadda aakhirada u jeediyey. dadku hadday ilaahay gartaan, aakhiradana ay gartaan, markaaba nolosha adduunyadu kuu macaanaana ogow. haddaad ilaahay garato ood ka cabsato, aakhirada u socotana aad ku xisaabtanto, nolosha adduunyadu waxay kuu noqonaysaa wax yaroo dhib yar. masiibada adduunyadu way kula dhib yaraan, dheefta adduunyadu way kula dhib yaraan, dhibteeduna way kula dhib yaraan. lidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ku salliya rasuulkeenna agtiisa waxaa ku weynayd diin baa ku weynayd, nebiga adduunya kuma weynayn. maxaa ku weynaa? diin. islaamnimadaa ku weynayd. adduunyadu agtiisa qiimo ma lahayn. aqrac binu xabas baa u yimid oo yidhi xoolaysii 100 halaadoo geeluu nebigu siiyey, 100 halaadoo geela. cuyaynata binu xisnin baa nebiga u yimid, yaa rasuul anigana isii 200 halaadoo geela siiye buu nebigu. safwaan bin umayyu nebigu eegay oo xoolaha saa u eegaya,
xoolihii laga soo qaaday gaalada markii lagu duulay laga adkaaday yaa abaa wahab markaa buu labbayk yaa muxamed xoolaha intaa lag haddii lagu siin lahaa ka waran dee fiicnayd adaa iskala qaada buu nebigu ka yidhi isagoo cumar iyo bilaal ag joogaan buu nebiga nin u yimid waxay sii bilaalow sii uu sii ku kalaa yimid sii bilaalow sii ku kalaa yimid sii bilaalow sii bilaal wuxuu ahay way dhammaadeen ku kalaa yimid sii bilaal baa yidhi yaa rasuulallah waxba ma hadhin khalaas waan siiyey markaa buu yidhi orod adu magaalada ku noqo magaalada madiina ku noqo oo magacayga waxaad doonta ku qaado anaa bixin doonee ka warrama marka uu nebigu saxaabadiisa uu xoolaha sida ugu bixinaayo reerihiisa waa bilaabiil ogow guryihiisa dhari dab lama saaraayo xoolahan dadaal diineed bay ku yimaadeen ummaddaan ugu khidmaynayaa ummadnimadu nebigu ku dhisaya dhaqaalaha soo galoo dhan ummadnimada ummadda uu dhisay nebigu calayhi salatu wasalaam yaa bilaal sii way dhammaatay magaalada gal buu yidhi adu magacayga waxaad doonta ku qaado waa lagu siinay magaalada madiina dadka ku nool haddii uu yidhaahdo nebi maxamed orodoo aabbahaa soo dil wuu soo dilayaa ninka magaalada madiina jooga haddii uu saxaabiga nebigu ku yidhaahdo orodoo islaantaada qudha kaga soo jar wuu kaga soo jarayaa waayo amarka nebi maxamed ka soo noqoni maayaan mujtamaca madiine ku nool shakhsigan dhex jooga qadarkiisa iyo qiimihiisay garteen innaguna maanta rasuulkeennii qiimihiisaan garan laanahay maanta oy dhallinyaradeennii maanta dad kale ku dayanayaan dad kale dhinac buu xirtay surwaal googo'an buu xidhay yaad ku dayatay dadka ugu litaad ku dayatay ogow maxaad ugu dayin weyday nebigaaga moxamed sal alla alay slam saxaabadu qadarka nebigay garanayaan ku kalaa yimid yaa rasuul anigana isii adna magaalada galo magacayga waxaad doonta ku qaado cumar bnu khadaab baa nebiga qabtoo yidhi yaa rasuul allah ilaa haada alxaddi ilaahay kuma kallifin waxaad haysay waa bixisee waxaanad hayn maxaad isku kallifaysaa buu ka yidhi markaa buu nebigu aamusay saasuu eega cumar bilaal baa hadloo yidhi anfiq yaa rasuula allah laa takhsha min dilcarshi iqlaala yaa rasuul allah bixi oo dadku magacaaga waxaa ku qaataane daa ilaaha carshiga weynu saaxiibka khasaa'intiisu inay wax ku yaraadaan marna ha soo dhigan meesha markaa buu nebigu qoslo wuxuu yidhi bihaakadaa umirtu yidhi yaa cumar sidaa bilaal uu leeyahay baa aniga la amray buu ka yidhi innagana oday adeerkaayoo baadiye ka yimidoo martiyoo xilli duhur kugu soo dul dhacay ayaad odhanaysaa adeer maqaaxida tegday meesha cunta ma taalle waad ka naxaysaa soo maha martidu waa ka naxna innagu maanta nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ducafada ee muslimiinta ayuu dhaqaalaha hayoo dhan ku bixinaayey kolkuu dhaqaalihii uu ku dhammeeyeyna wuxuu leeyahay magaalada galoo magacayga waxaad doonta ku qaado adug magacayga waxaad doonta ku qaado anaa bixinaye ummad buu nebigu dhisay marka ummad dhaqaalihiisii buu ku dhisay fikirkiisii buu ku dhisay diinta wuxuu hayay buu nebigu geliyey calayhi salaatu wasalaam ma fahamteen hadaankii waa gaadhay miya masha allah ummadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan muslimadda dhaqaalihiisii dhiiggiisii dheecaankiisii usraddiisii iyuu nebigu ku dhisay diinta islaamka markaasuu xikmad dacwaddiisa ku wada xikmad kii masjidka ku kaadiyey iska daaya buuhi kaayada ha dhammaystee iska daaya kaayada ha dhammaystee kii dhallinyarada ahaa ee yidhi zinada ii fasax saxaabadu way ka naxeen ii soo dhowow buu keen ii soo dhowow uu qanciyey nebigu calayh salatu wasalaam uu qanciyey si xikmad leh marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda ugu fikirayay ugu naxariisanayey inaan ugu naxariisannaa loo baahan yahay oo dhaqaalaheenna wakhtigeenna ilaahayna siiyey inaan diinteenna gashanno oo inaga noqoto diintu ay naga noqon diintu sheegashee ay diintu naga noqoto tacab inay naga noqotaa loo baahan yahay maanta oo diinta waxay naga galaan shayga goormaad laxajeclo u yeelataa markay wax kaa galaan weeyaan
موبايلka yar gacanta ku wada wadataan haddii ilmo yar intuu qaada qarradu sida ugu xaquuqa muraayadiisa ma yeeli lahay waxa uu yeelay maleeshiya laana lacag ba ka gashay gaarigaaga in laga xaquuqa ma jecel lacag ba ku bixisay shayga markaad wax gashatid baa qiimihiisa garataa waxa maanta muslimiintu diinta qadarkeega qiimaheega la garan laanahay ee diinta aanu haysano wax yar oo fudud marna la tukan karo marna la iska dayn karo marna masjidka la iman karo marna laga boodi karo waxaan ugu haysanaa waxa weeyaan waxba diinteena kama gelin maanta innaka diinta shaygan markaad wax gashataad qiimihiisa garan inaan diinta wax gashanaya u diyaara insha Allah dhahada insha Allah dhahada inaan maalkeena diinta gashano diyaar ma nahay saxaabiyaat sulaym ana sidee soo qaaday nabiga u keentay yaa rasuulullah kan waa ku siiyay diinta ii galibay tiri khaadim ka dhigo adeegso wax kale ku keena ma hayo islaan miskiinadaan ahay laakiin waladkan baariga ilaahay siiyay adiguna magaalada madiina hadda timid qariibaad ku tahay isaga kugu deeqay qaadaba tira ku adeegay markaa buu nabigu u duceeyay markuu dhimanayo Anas ilaahu cimrigiisa cimri dheer cimriga u barakee oo dhaqaalaha u barakee oo awlaada u barakee waxa la yiri saxaabada ragii ugu cimri dheeraa buu ka mid noqday dhaqaalahana muslimiinta ninka ugu maal badan buu noqday awlaadana 120 wiil isagu uu dhalay ayuu la cuntay meel la fadhiistay baa leeyahay gabdhuhuna waa gooni wiilasho kaliya inta ahaba leeyahay boqol ku dhawaadna uu aasay baa leeyahay markaa buu jiray ducadii nabiga barakadeedii waa taas eega haddaan diintan wax gashano walaalayaal oo awlaadeena madaarista quraanka keenon cilmiga iyo quraanka barno raggeena waaweyn masaajida aamirno dacwada ka shaqeyno haweenkeennuna ay muxajabaat asturan oo guri jooga inoo noqdaan inaan ku barakowno mooyaane diinta ku khasaari mayno insha Allah dhahada yaa u diyaar diintan wax gashado waxaad gashatay diinta ummad adduunkana ka dhaafay aakhirana la soo bixiyo ugu لذلك جماعة إلهي درتي وبحايا 4 بلود 2 بلود 4 عشو وقتقاسي ووسائل الدعوة للوسائل حكم المقاصد ووسائل الدعوة حدانا وقتقين النظامنا ما قاعد كرين هدف كان دونين وحب النظام بلو سميه تنظيم أبوركي بني آدم كان تنظيم لو سميه يقول لي أفرتك هو نطفة أفرتك دحانا وعلقة أفرتك سدحانا ووصل دير بقول يلا واتك علمه مركو جرو أي روح الله وافوفا علمها وتنظيم ترتيب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب وترتيب ترتيب الشريعة الإسلام كأقول صلاة دي باللغو ترتيب يقول لغايري واشو وقت رمضان كيبال ليري أياما معدودات حج كيبال ليري وأيام وما المكوبة نسقنا تنظيم سداس درادة دين تينا كشغينا ونولشينا دعوة وظيفة الحياة ويان لكن دعوة إنا تببر أسوق هذا ونفت إننا صوت تربية دينا وطولويك ميجا يتون مرنا أنو مدوقوينا لا إله إلا الله دتك ميجا مركا دحمرتان قارب هذا رقصة سقاشا جرى سيديت جرى وصلاة دودو أسحين مانت صعد كاس أيا أمدو بركتكو يلان يسا يحرك الناس ده إن شاء الله نكما أرنايا فرصة أقوى رئيسي إلهي السيو إن أنا أفر بلوصو ديار قروبا أيا نيودة يدعي نكيلو واللقو دعين سركع قاعد معها قاعد تاقى وانصور دافان موضية أفر بلود إن شاء الله هذا انت ما كنت هنا مسوانك عنا ولبا حتى شيخ كاميرا قدوبي يوقع سو ما هي بس هوشان هذوك عضي هوشان هذوك عايز هاي مكان ان شاء الله هيا افرتك ونرعان افرت نعيشو قولدين افرت بلوندي وتفريست هذا افرت نعيش هاي افرت كوبيا وابلي توان مالمود يا لو دعيا والراعي جماعه داس ويمكي ما تي بري معها واتسو قرشيني قرشا لو باين لا سميست بالكذب 2 بلود كذب 3 بلود كذب 4 بلود كذب يا افرت العيش سو ديار قروب هايستاو